dowladda hoose magaalada Berbera ayaa maanta guddoonsiisay ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka laba baabuur oo lagu talagalay inay ka shaqeeyaan gudaha magaalada Berbera waxaana baabuurtani ka guddoomay maamulka dowladda hoose ee Berbera taliyaha guud ee ciidanka ilaalinta nabadgelyada wadooyinka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland way weheliyeen saraakiil ka tirsan ciidankaasi waxaana halkaasi ugu horeyn hadal ka soo jeediyay Cabdikariim Aadan Siciid xokayaha dowladda hoose ee Berbera iyo sidoo kale xildhibaan Maxamed Cali Dheero oo ka tirsan golaha deegaanka ee Berbera oo ka warramay qorshaha gaadiidkan ay dowladda hoose ee Berbera ay ku wareejisay ciidanka ilaalinta nabadgelyada wadooyinka waxa farxad noo ah inaan soo iibino inaan halkan ku daafurayno laba gaari oo ciidanka taraafikada loogu talagalay iyadoo gaadiid kale oo fara badan iyo qorshayaal maxay tahay ciidanka booliisku ay leeyihiin oo ku jira qorshaha 2019 dowladda hoose ay soo socdaan horumarka ay degmadu ku talaabsanayso haddaan laantii amniga socdaalku aan iyaduna ka qayb qaadan qurux yeelan mayso degmadu intan uguma horeyso waxay bilayska iyo amniga ay ka tarto waa wada shaqayntii iyo wax bixintii ayuun bay tahay duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladda hoose ahaan ay mar walba taageerayaan ciidamada nabadgelyada isla markaasina ay si joogto ah ula shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland kada laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera oo soo gobolka oo dhan ka shaqeyn doona in labada gaadiidka ku wareejino talabaadna shuruucdii wadooyinka iyo calaamadihii wadooyinka oo dhan sambi booliskii oo dhan iyagana maxaan ku rahdaa iyagana maanta ay qotomiyaan oo calaamadiyaan ay goolba dhigaan si anaguna aanu fulino marka labada munaasabadood baan soo afajinay aad baan taliyaha ugu mahad celin marka nabadgelyadu waxay noo tahay top ta koowaad bay noo tahay sanad walbana miisaaniyadda heer bay ku leedahay sanad walbana waa wax qabad ku nooc doono marka la qabtamo dhismayaasha hala dhiso ama ciidanka hala tayeeyo ama gaadiidka hala tayeeyo waa qorshe sanadla oo sanad walba ku jira taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Faysal Xiiso isagu halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadnaqay gaadiidkan ay dowladda hoose ee Berbera ay ku wareejisay waxaan si muglagulaynaa labada baabuur ee lagu soo wareejiyay oo wax way ka tari doona xagga nabadgelyada gaar ahaan xagga shiralka nabadgelyada wadooyinka waxa kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayna maayarka wadooyinka waaweyn aan soo aragnay ay u sameeyay kuwaas oo ah kuwa waafaqsan xeerka nabadgelyada wadooyinka ugu dambeyntii aniga ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliiska waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqaynaa gudoomiyaha golaha deegaanka oo had iyo jeer ciidanka booliiska garab taagan hadday dadku gartaan sida amnigu in wax walba laga horeysiyo amnigu wadnuhu ka dhigan yahay dadka iyo dalka wuxuu uga dhigan yahay wadnaha haddii faritaabto wad garan karaysan xanuunkeeda dhaqaatiirta unba garan karta marka ninkii taa gartaa waa nin wax badan gartay shilalkuna aad bay labada wajid ee magaalada soo galaba ugu badan yihiin xalay baa ugu dambeeyay wayna ogeyn intii ka horeysana waynu la soconay gaadiidka marka hore yaalay taraafikadu lahaydna hal gaari oo kaliya buu ahaa kaasina kuma fileyn gurmadada uu ka gali karo labada jid ee dhaadheer ee gobolka ku yaala marka laga tago inta bariga wixii ka dhaca meelaha kale aan laabidu maraynin baahi xoog la ay runtii ku soo xilligii loo baahnaa ayaa ku soo beegantay wuxuuna la kowsaday gaadiidkaasi jidadkii quruxda badnaa ee aragteen kooda waxay kormeer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee ay samaysay dowladda hoose ee Berbera kuwaas oo ay dhawaan ay dowladda hoose ay ku xidhi doonto calaamadihii iyagu hagaayay wadayaasha gaadiidka kuwaas oo ay kala shaqeyn doonaan ciidanka ilaalinta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Saaxil Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera